wuxuu xasuustay gabar ciidanka xoog dalka ka tirsan oo sarkaalada ah oo markaa dhiigtiga ku jirto shaqeynaysa tiyuu la hadlay wuxuu yiri waxaan rabaa sirtaan qof kale oo aan ku aamini karo ma laha oo adiga ahayn in baabuurkaas aad ka badbaadiso boqolaalka qof oo masaakiinta ah oo uu loogu talagalay in lagu laayo Soomaaliyeed gabadhii habeenkii dhan ay soo jeeday mishinkii way fulisay baabuurkana way qabatay waxaan rabaa inaan idin la wadaago sheeko yar oo dhacday sanadkii 2016 ayaa waxaan joognay magaalada Leela Jowhar annagoo ah ururka haweenka oo u tagnay inaan u qidmayno gabdhaha Soomaaliyeed habeen annagoo soo jeedna oo ka hadlayna arrimahaas ayaa nin waxaa noo yimid generaal oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan wuxuu nala wadaagay wuxuu weydiiyay maxaa saacaddan idin soo jeediyay markaas waxaan dhahnay ninkii seexdaa Siciid Dibe dhalay waxaan u soo jeednaa in xuquuqdeena u halgano marka si aan xuquuqdeena u helno waa khasab in hurdada aan iska ilaalino isaga laftigiisu wuxuu u soo jeeday markaa saacadaas inuu ilaaliyo qarannimada oo uu ka daafaco cadawga waxa dhacday in telefoon u soo dhacay telefoonkaas markii uu qabtay waa nagala fogaaday cabaaro naga maqnaa kadibna waa loo yimiday nalamu wadaagin waxa telefoonka loogu soo sheegay ilaa ciidanku ma sheegaan sirta ciidanka iyo marka dagaal lagu jiro iyo markay wax dhacayaan kadib mar aan fadhinay 2 saac oo kale ayuu wuxuu ku guuleystay mishinkii uu ka shaqeynayay iyo telefoonka u soo dhacay markaas uu nala wadaagay oo loogu bishaareeyay markii hore waxa loo soo sheegay baabuur qaraxyo ka buuxaan in laga soo cabeeyay magaalada kamida magaalooyinka ku yaala shabeelooyinka kadibna baabuurkaas uu ku soo wajahnaa xamar si uu qarax uga fuliyo markuu indheeyay dad badan oo checkpointiyada joogay meesha aagga uu soo maraayay wuxuu xasuustay gabar ciidanka xoogga dalka ka tirsan oo sarkaalada ah oo markaa dhiigtiga ku jirto shaqeynaysa tiyuu la hadlay wuxuu yiri waxaan rabaa sirtaan qof kale oo aan ku aamini karo ma laha oo adiga ahayn in baabuurkaas aad ka badbaadiso boqolaalka qof oo masaakiinta ah oo uu loogu talagalay in lagu laayo Soomaaliyeed gabadhii habeenkii dhan ay soo jeeday mishinkii way fulisay baabuurkana way qabatay iyadaana gacanteeda ku fulisay markii baabuurka gacanta lagu dhigay ayuu nala wadaagay marka gabdhaha Soomaaliyeed sida ay u yihiin lafdhabar ama loogu kalsoonaan karo marka ay fulinayaan howlaha qaranka marka saacad wasiir maadaama gabdhuhu ay ka daacadsan yihiin wiilasha ma dhihi karo waa wiilasha anaga dhalnay laakiin marar badan gabdhaha feejignaantooda badan oo waxa laga yaabaa inay siyaalo kala duwan ay wax u fiiriso markay aragtaa dhaqdhaqaaq ka duwan kii hore marka dareenka Ilaahay ku abuuray iyo dadnimada Ilaahay siiyay dalka wax badan ay gabdhuhu ugu qaban karaan marka haday gabdhuhu u istaagaan inay cadowna la dagaalamaan qaranka la daafacaan waa dadka ugu wanaagsan ee guusha ka dhalin kara oo keeni kara Soomaaliya ay soo dib u dhicin